السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الشرف الوائد السلامين القصتكم فعلا سويدين محال شادي الشرف كحناتي محاكو كيني إني فرق حورتو تيك توك سوقش يا مسوقات انتن بلط إيضا نو معنين دونتا إن وحيالله وحاجر حقيقتي aan dhinaca maamooyinka laga marinin hooyada laga marin wax kasta hadday u dulqaadato hal shay uma dulqaadato iyadaana noo sheegi doonto buya anigiyoo maqan iyo qof oynayo soo wacay iyo dhimashoon kula tashanayna qofka waqti walba u dhima karaa qofkii hilibkaaga dhinta qof la dhahay maxaa ka sugaysa markaa qabta qof oynaya aan ka war helay maxamedaa dhintay waa ilaahay wax ka weyn nagu jirtaba bil ramadaan waay aniga cid ah horta wax qabo male bil ramadaan waay cunugayga qofkii amaan ii siin waa ilaahay subxaanahu watacaala ku dhahay sax waaye alaabtii dhulka dhigay hadduu dhiig kar igu dhici karo xalo ugu dhici lahay waa fadhiistay cabdifataaxa wara waxaan kuri cabdifataaxow aaw maxamed waa kana wuu ciyaarooyaa wixii ciyaarooyee cunugayga mar horuu dhintee waana iga qarinaysaay cunugayga itus walaala cunuga waa nabad qabaa cunugayga ma nabad qaba cabdifataax faare cunugayga ma nabad qabee cunugay cabbaar markaan doonnay oo videogii furuyir waa kaas cunugiis wuu ciyaara assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa wareer wallaahi macnaha wax kasta waa loo dulqaataa wax kasta waa loo dulqaataa waad u dulqaadataa wax walba laakiin awlaada xaggeeda in la iska maro ma fiicna iskaase awlaada xaggeeda in la iska maro ma fiicna waxaysan ku fiicnayn how come inta hooyo u wacda aad dhihi kartaa macnaha cunugaadi waa dhintay sidee baad fiyuus ugu raadsan kartaa sidee baraha bulshada usoo gelin kartaa sidee qof dhan oo hooyo ah u leedahay intaa soo wacda wiilkaadii waa dhintay oo nool oo aabihiis la joogo oo waxa weeyaan meesha uga soo tagatay joogta hadduu wiilku problem qabo aabihiis sooma soo wici lahayn ya aabihiis sooma soo wici lahayn oo ma dhihi lahayn waxbaa noo yaala problem baa dhacay sidaasaa wax usoo dhaceen cabdifataax sooma soo wici lahayn ya because waa hooyo turkigay joogtaa danay u joogtaa danay u timid ya baashaal uba ibaadhin excuse me garina hereegso amiina maasha allah tabaaraka allah waxyaalo waxaa jirta lagu kala fogaado waxyaalo waxaa jirta aan la iska marin waxyaalo waxaa jirta qofka bini-aadanka dhaawacaya qalbigiisa dhaawacaya dhiikar ku dhalin kara sonkorta ku kicin kara you cannot imagine qofka hooyo weeyaan ilmaheedii weeyaan waxa ka hadlaysiin waxaa leedihiin in hooyadanayte ilmahaadii baa dhintay markaad tiraahdid you know maalin madow inay ku noqonayso you know qalbigeeda dhan inuu gadoomahayo you know cirkii dhulka inay isku darsamayaan oo la wareegayaan you know adinkaba hooya idin dhashay you know inaa qof bil-aadana aad tiraahdeen ilmahaadii baa dhashay xaraam caley ilmahaadii baa dhintays xaraam caley you cannot say that huh? This is ridiculous heer waxaa ku kalifteen ay wacdo cabdifataax oo tiraahdo no wiilkayga waa dhintay been baa ii sheegaysaa itus heer kaameradii uu inta u furo inta cabaar la murmay oo kaameradii u furo ku qanciyo yidhaahdo waa kasaa wiilkaadii waa ciyaarahaya ya xoogaa qalbiga u dagaaya laakiin waxaysan ka sawaaqsanaynin dadka sida xun u hadla dadka sida xun wax u raadinahaya intay ka keenteen waxaa soo wacay waa dad ka naxaya oo faankeeda maybe qofkaas wax xun sheegahaya maqlay xasbuna allah halasku naxariista ilaahay aan laga tegin waa waqti rabadaana waa waqti ay wanaagsan tahay inama aragtay waxaa wanaagsan laga taliyo samaha laga taliyo ee aan xumaanta laga talinin
idin salaamayaa ramadaan kariim asxaabta ku xiran pagekayga youtube-ka soo dhawaada idin leeyahay marka ugu horeyso waxaan halkan ka raaligelinayaa asxaabtayda qaasatan inta farxadda iyo qosolka iiga baratay oo xalay anigoo aad iyo aad u xanaaqsan asxaabteeda u mahad celinaysaa dhigo video run ahaantii ma jecleen anoos noocaas amba anoos isu xanaaqsan inaan wejigayga idin horkeeno laakiin waxaa waaye way dhacday kolley waxaan halkan ka sheegayaa bal sharafteeda fiir qof sharaf leh oo wanaagsan shaadiya inay tahay waxaa ku ogaanaysaa iyadoo macnaha xanaaqsan oo kacsan ayaa waxay soo gashay ay soo gashay maxaa la yidhaahdaa tiktok fankeeda apologize ayay uga fidinaysaa xitaa sharafta ilaahay baa dadka u dhaliyay siiyana apologize bay u fidinaysaa iga raalli ahaaday leedahay dantii ku kalliftayna horudhacee hore idiin siisay oo waa arkaysiin maxaa ku kallifay inay saas u xanaaqdo maxaa ku kallifay iyadoo xayraansan inay soo gasho tiktok oo ay ku qarxato please halaisku naxariisto uga naxariista hala isku fiiriyo bili aadanaa leeyahay waxa waaye dadka inay hilfaha iska qaadaan ma wanaagsan dadka inay saas u dhaqmaan ma wanaagsan awlaada in la iska maro oo la iska weeraro ma wanaagsana dhimashadu isna hadal iisiya wax culus weeyaan anigu waa cayday wasaanu ahaa xagga ahayd iyadaa cayday odageedaa cayday dhulkaa gabadhaan la gasheen waa la liqe ya haddana ilmaheeda hadii lagu diro dhimasho loogu daro xasbulana wa nicma alwakiil wax wanaagsan ma aha xaqiiqdii wax loo dul qaadan karana ma ahan sidaa la isku dhaamaan dhihi lahaa waxaa waaye saxaabteyda ka raaligeliyo tan kale horta waa ramadaan waa maalin kheyr badan oo maaragta maalmaha kale ka kheyr badan in anigoo maalmaha kale oo soonka soo dhawaa oo xilliga ay ugu fiican tahay in la cibaadeysto oo ilaahay xaggiisa loo dhawaado inkastoo mar walba ilaahay xaggiisa loo dhow yahay haddana kasii kheyr badan maalmaha kale in aanoo xanaaqsan soo duwo video taas waxaabaa horta waa dikraalgina tan kale horta qofka bini aadanka iyo waxaa wanaagsan meel aan laga marinaa jirto kolley wixii hooyo unbaa dareemi kara aniga meesha la iga maray hooyo unbaa dareemi karta hooyo curudkeedii cunugeedii ugu horeeyey la nabay oo haddana mar ahayn oo laba ahayn oo 3 ahayn waayo ma fahan waa markii 3aad cunugeyga la dhahayo maxamed ha dhintay horta la dilaa dhinto marka ugu horeyso marka labaadna in qof nool aad disho oo haddana saqiir ah oo aad fiyuus ku raadsato run ahaantii walaa isma lihi xitaa qof soomaaliyeed iska daayay qof bini aadanimada ay ku jirto waxaa sameynaa isma dhahay sababtoo qof damiir leh oo dadnimo leh oo miir leh oo maskax leh cunug saqiir sabiyaan waxba galabsan oo adduunyada korkeeda wax dambiya aan ku lahayn intuu qof soo istaago oo beenka sheega isma dhihin anigaa joogo aabihiisaa joogo fiyuuskeen labadana idinka badan ma garatay sidaa wada ogtihiin waa kala tagaynaa la dhahay ma xanaaqin wax ma dhihin ma caytamin dhowr maraa liicaayay dhowr maraa anoo wax kasta liigu sameeyey dhowr maraa liigu xadgudbay weligay naagta intayd soo fadhiisatay ka hadashay amba jawaab ka bixisay ma ihi ma garatay waxaan ugu bixin waayan waxay ahayd in aanan ka xumaanaynin ay aniga kuleel iyo qabo aysan igu haynin haddii liicaayo iyo haddii wax lii dhaho yaa laba aniga iguma hayso kuleel maanta dhan haddii liicaynaayo oo wax lii dhahayo intaas oo kuleela wallaahi bilaahi talaay ma dareemo sababtoo waxaa layidhi qofka marku gurbaan tunto nin gurbaan tumay ilaaq dalbay ay dhahdo fahanteen marka waxaa waaye aniga maxmi anaa u bareeray taas in liicaayo anaa caan u noqday in wax walba laigu sameey anaa maaragtay sabab u laakiin maxamed wiilkaygii aniga aan dhalay oo culadkayga ahaa
oo ilaahay ii daayo cimri dheerna ilaahay ii siiyo hooyo indhagool u yahay hooyo curud u yahay weligeeda adduunyada ugu jeclahay weligeeda inma dhima jirin oo maaragtay oo la dhima jiray kama xumi wuxuu ilaahay igu iqaabo oo ilaahay adduunyada korkeeda iigu sameeyo kama xumi sababto iimaanaa leeyahay iimaankeyga ilaahay ii sugay waxaana wanaagsan qofka bini aadanka ah in ilaahay iimaankiisa horta uu kaamil yahay qofka inuu iimaankiisa kaamil yahay horta way hadlaysaa waxayna ka hadlaysaa waxa weeyaan xaqiiqdii arrimo meesha yaala xaqiiqday ka hadlaysaa haddii la caayo waxay tiri haddii la caayo oo wixii rabo layga sheegay tiri wax walba laygu sameeyo anaaba u bareeray tiri sababtoo waxaan baraha bulshada usoo galay oon caanka ugu noqday tiri so waxaan garatay ma waa laygu xadgudbay tiri waxaa layga sheegay si kasta laygu sameeyey tiri ya heer ayadii odageedii aa kala dirteen ayaa gaarteen heer waxa weeyaan wax walba kama xanaaqin waxa weeyaan uma jixinin because waxa weeyaan kor adeegeeday leedahay baraha bulshada ugu jirtaa taas oo she knows waxaan views nagu fiirsanayo laakiin mid ilmo saqiira views laguma raadsado because ilaahay dilaa dhinta wiilkani waqti buu leeyahay waa wiilkeedii ugu horeeyey oo curadka oo ilaahay siiyey indhaheedayna ka jeceshahay hooyo kastana ilmaheeda indhaheeday ka jeceshahay hadduu curadkii yahay iyo hadduu guri dambayska yahay markasta hooyadu ilmaheeda way ku dhaarataa so waxaa garata ma aha baraha bulshada inaa lala soo istaago ilmahaadii baa tegay ama dhintay ama saan noqday sababtoo waayo ilmo saqiira oo sabiya oonba dembi lahayn oo waxa weeyaan xaaladaad aa ka hadlaysiin amba warhayna u dilaysiin maxaa looga dilayaa muxuu ilmuhu galabsaday maxaa ku kalifay in la yiraahdo ilmahaadi wiilkii yarkaha ayaa dhintay waxyaalahaasi I think in laga fiican yahay ay khalad tahay xadgudubka heerkaas gaarana ma fiicno gabadhaan haddaa iyada cunaysiin waa cunteen haddaa ninkeeda cunaysiin waa cunteen hal iska daayo asxaabaha tiktoka iyo youtube-ka gabdhaan iyo ilmaheeda faraha laga qaada amaana la iska siiyo waqti rabadaan waay yaan la isku dambaabin oo rabadaanka la isku waayin ummaddiisa ilaahayna aan la dambaajinin intaasaan uga baxayaa fadlan subscribe liketa iyo shareta ugu dadaal all my videos maxaa la yidhaahdaa liketa iyo subscribeta iyo liketa kulli meel dharayna gaarsiinayaan please asxaabtaada la sheer garee thank you very much waa intaasaan uga baxaya